موسى نعرف على هذا مساحة مع موسى. بسم الله السلام الله مغعيغو موسو جنالكا داونيسنا waa Cabdi Xakiin AK fan waxa soo shimla kaaga codsanayna subscribe share gamreerka afurtid video nadia ka shilaa comment ka soo bixi shir gaar asxaabta la wadaag waxa ila fadhiyo saaxiibkayga Laandheere sidoo kale waxa asna aan ka marnayn goobta walaalkay Cabdi Xakiin AK ala janaalka daawanisina oo leeyahay waxa halkaan u fadhinaa inaan ka tacsiyino aan u tacsiyino Soomaali weyn meel walba dunida ay ka nooshahay waxaan muujinaynaa inaan aad u xunaan aad ugu ka tacdisanahay musiibadii ku dhacday walaalahayna Soomaaliyeed magaalada Muqdisho waxa dhawaan maaragtay aan maqalnay ama soo gaartay inuu qarax ka dhacay ex control kuna geeriyoodeen dad aad u fara badan oo Soomaaliya waxaad ku soo dhaweynaa si laba eray ugu dhahan walaalaha ayagan markaas ay la fadhiyo Laandheere ku soo saaxiibka cali horta niyow horta waxa la ilaahay diraa dhan saaxiib macaane waxa leenahay intii dhimata Allah u naxariiso jannadina Allah ka waraabiyo horta Soomaali hadana dhimasho nagu yar nagu cusba maalin walba ay adduunka ku dhimashaynay saaxiibka cali maalin walba boqolaal baan dhimataa kota si dagaalka isha labada adduunka inaan ku jirno kala camal marka waxa leenahay saaxiib Soomaali dhimata Allah u naxariiso ilaahay Soomaali hal mid ka dhigo cadawgan u dhax jiray cadawgaas hanay qabto meel hanaga mariyo ilaahay calankeena hal mid ka dhigo Soomaalidu ilaahay ma riyaalo amiin faataxan amarno marka waxa leenahay go'aantii meeshaas ku dhimata Allah u naxariiso horta qaraxan dad baa ku dhintay kiiso ba amal kale aha adduunka uu ku galay Soomaali dhumruhu ku abuuray wallahi waxa leenahay intii dhimata Allah u naxariiso intii ku dhaawacantayna Allah caafiyo qaraxaas wuxuu ka dhacay sanbara bisho ku arkaynay Muqdisho ka dhacay ex control afku yimid loo ex control jirta ex control afku inay tahay jeclahay waxa la intii ku dhimata Allah u naxariiso horta qaraxna waa cusbaniyo waxa hor maalin walba maalin walba ka dhaca no waxaas wax soo wahda anu ma aqaan mushkiil maanta waxa soo ah ma dhigi karo wax la galad leeyahay iyo wax laga wado waay dad baa wax sheegay maanta waxa leeyahay muslimiin baan nahay walaalkood been diraya maanta taa walaalka tishid wax muslimiin loo dhigi karo waay walaalka wadisa marka waxa leenahay saaxiibna aan ilaahay dadkaas ana qabto meel gaarna Allah naga mariyo insha Allah ee ku soo saaxiibka cali inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un horta waa ka tacsiinaya qaraxaas ex control ka dhacay wax ku dhinteen dad badan oo meena xitaa arday ay yihiin maanta cunugaas yarka wuxuu sameysmay hooyo ooynaysa arkay dhibaatada ilinteeda xanuun loo adkeysan karin waxa uu tacsiinaya dadkaas iyo ardadaas iyo bulshada heebash ku dhimantay ku baabeen mar walba waxa loo haysta ma aqaan mar walba wax loo daba taagan yahay oo macnaa loo ogaarsana ma aqaan sida xayawaanka iyo kaleeto dadkeena walaalahayna wallahi waa ku xumaasaa markaas soo kacay fiifiiray waxaan buuqan iyo tacsiinaas daba taalo ma ka arkay naftirkay waa naxay Black Fridays kii camal qarax iyo hada ka hor soo bax marka dhici jiray xitaa waa ka daran yahay kaloo kale qarax maahan waa xanuun marka waa u tacsiinaa walaalay qaaliya Soomaaliyeed meel walba joogan wallahi waa xanuun marka arkay hooyo Soomaaliyeed oo cunugeeda oo dhiig ka socdo kor ku hayso la cararayso oo inayso marka arkay gaariga uga soo gubtay u burburay marka waxaas camal waa Soomaalida xanuun keena waa taa hadalka ay dhumay tasaaqabo hadalna la saaxiib macaan dad walaalo anahayo wala isku kendiraye nacabkeeni noo daramba dabinada inoo dhigaye Soomaaliyeed tooso isku tiirsadaye Habadina tagdarane taageera waligine qarba khabriga galayo qarba qurbaha tagayo qarba qadaha qubayo qariba ya dhaqankiine Soomaaliyeed tooso isku tiirsadaye habadkiina tagdarane taageera waligine
qaxar iyo dhibtaan badan baa la adkaysan waaye qori iyo qabiil daran baa qarankeeni baabi'iyo kana dhigay qaxooti baxo quursadaan adduunyadu soomaaliyay toosoo isku tiirsadaye halbarkiina taagtarane taageera weligiine dad walaalo baynu nahay waa laisku keendira nacabkiina inoo daran baa dabayna inoo dhigay markuu qarax dhaco sidaan oo kale fiidayaal baa lasoo duwaa heesooyin baa lasoo qaadaa qof walba wuxuu social media ku muujiyaa shucuurtiisa ama dareenkiisa markaasuu aadka uga xun yahay runtii in fiida la duwo ama heesa lasoo qaado waxba maaha laakiin waxaa qurux badan inaa wax la sameeyo hor u socod ama tallaabaa la sameeyo waxa meesha ku dhimanayaaba adi walaalkaaga Soomaaliyeed waa wax barooranayaaba adi hooyadaada Soomaaliyeed waa wax meesha ku naafuga ku dhibaatoona ku dhaawacmayaaba aaba Soomaaliyeed waa walaalkaaga waa marka maxaa keenay anaga shisheeye manihi dad ma aragtay adoona manihi wadanka waa wadankeeni dadki waa dadkeeni wariya xasuuqi wariya yaa dilaysa walaalkaaga waa maxaa u dilay muxuu ka sameeyay war ardayda waxa la dhaawaa u bixi dalka saaka wuu soo kacay hooyadiisa soo macsalaamay aabiisa soo macsalaamay familigiis wuxuu ugu sootay si uu wax u barto jaamacadiisa waa jaamacadii muusan aadina qarxa la beegsado wuu dhintay wuxuu ku dhintay maxaa loo dilay muxuu sababsay maxaa loo dilay والله horta aad ugu xumaa ma aqaan shucuurteeda si ay tahay insha Allah waxa Allah subhanahu wa ta'ala ka baryeena qarxi ugu dambeeyay dalkii ka dhaco inuu noqdo ilaahay ka dhigo subhanahu qadra ka dhigo insha Allah Soomaaliya oo midowda isku toosan ilaahay waa tusi kara insha Allah ilaahay aan tuso aamin ina ayroto Soomaaliya taanahay noortad qalb from baa ilaahay naga dhiga laakiin mid wax ku xunaa mid qaana saxaabka cali waxa taata maanta sheegno meesha ka tagayna hada waa ard qarax soobe qarax waxa lagu baabaa oo Soomaali badan barba ku baabaa intaas kun waa gaar ahaan waayo shan bar isbuuc mar inta wadooday baraha bulshada soo dhigay nin walba fiidiyo ku soo duubay meesha loo tagay waxa warta muhiimad waxa weyn wax qabno wax qabad aan soo tiirsanaano dad baan u dhex jiray cad waa walaal iska ka dhigayo oo Soomaali ah horta ina hayb karna waa ma fiicna dad waxa jira Soomaali oo walaal iska ka dhigay shidad wadama shay lacag ka qaato dad shay lacag siiyaan balse aad aqoon walaalka way intaan hadda qabiil ku tafaacaleen walaalka dilahaya مريض ولا كتر ما ترى أذوق دلها ما أنت قليل كنت فعلا أسقى ونقطة كاس ميل إسكا صارنا في عن أوصلنا مركز الصومالية إلها المليان لا هاي وحس أنا أسوق الفرح واحد كانوا كل معنا وايد إحنا أسوق دري قبل بان سوق دري مركز كبع قبل ما سوق دري فالدولة دين الدنيا إلها الدولة كان قبتها نسيو وحاليا شعب الصومالي الدولة هالرعانة والدولة كنت رسالين دولة حقوق كرتا هدينا إنه الدولة تاكلين أو إنها كرب الساعين واحد توسع ملهن ماشي وسق بابا معلومة بنصاص وقرح ودعيا إلهي قرحان وكل مرتب من ودسو إلهي نمشي نقول أوكي هرت واحد إلهي حكي سيكون عن بس إلهي وحي هلا تدال وحي هلا تحترو هدانا عنو تدال عندنا تدال يسملان أنت عن UN يو تمشي أنت عليه لين سعودي هنعاوي يو تمشي هنعاوي مريكا هنعاوي أنت عليه لين أنت أنا وسكر صناعي في عن واي وأرتي هذا الشيء SYL تضيع توقف في عين وأرد تولد أيك أسر صدق توقف في عين أيك أسر هالكي وصومالي ماشي سوي كاسي أنا هاد ما تقدر يريد واحد هاي تلقى حتى أنا قلت لك أنا أودي بان إنه ودي بان يسمى لهن وديال عقات نودي يوم هيان وتنشي نودي يوم هيو حتى شيء كون وتن تفاعل محلها أو أدومي ذا شيء محلها قبتها كارش وتمحلها أمسوم يعني أسكو هالين أنا كو أسكرت يدا عن تاكلينه أو حسينه سينو تفاعل ما دار عسكري أو وحلسين وانقرش لسي والله فرحين عشورة على بحين وحياة هاي مال عسكري ماشي كله مياه ويا عسكري ما توصل شيء reerkiisa uu biil u keen waayo dad baa biil ka raba ciyaal buu dhalay hooyo ku sutay hadaa maanta uu lacag u keen reerkii ninkaas waa niyad jabiya wax sudaya marka inuu wax walba sameeyo oo wax walba meeshaas ka dhacay asoo fuudeeyo waayo hada qarax ma saaxiib aan musu waa dhaan saaxiib aan iska aamus ilaahay hanoo boo dhahay leeyahay waayo maanta askariga wax la siino mushaar la siiyo askariga wax sudaya wax walba oo meesha ka dhacay inuu fuudeeyo oo lacag ku qaato marka waxa la yiraahdaa Soomaaliya cashuurta aan bixino wadan walbana cashuurta ku dhismaa insha musu وسنا على قاعدة هذا مساحة مع المسوق
musu amsa وجهتها dhalinyaradi baa aweysa wallahi bilaa waa nin mir leeyahay saxnaa wadanka ilaahay hagaajiyo saaxiibka noqo wadanka hooyada joogto ayayda aniisa kurisaa joogto aabahe maskiina joog gaariska wado ka ganacsado aabahe maanta hadduu qaraxaas ku dhimanaa wadadaas ka shaqeeya ani maxaa ii dambeyn lahaa maxay nolosheeda maxay xaalada aabahey geeriisidii lasoo sheegla ana aabahe kuma geeriyoon laakiin wili soomaalid aabihiisa meesha ku geeriyooda wallahi billah maanta xaaladiisa maxay tahay muxuu ku sugan yahay hooya ninkeeda meesha ku weyse ooya wiilkeedina wax barasho ku jirta meesha ku weyse waa ku dhintay war soomaalida waxaa la dhahaa dad walaalo waay hal calana haystaan hal diina haystaan hal luqada haystaan maxaa isku dilaynaa war maanta aan hadduu qof kenyaan anaga nagu dhex jiro laha waa iska celin lahayn war qofka talyaaniyaan hadduu ahaan lahaa waa la dagaalamay yaana dagaalinaya iska celinayna laandheer maa la dagaala laandheer ma dila ani war dagaalka banaanka waa la iska celin karaa laakiin sifar waa waxa la dhaho dagaalka gudaha la iskama celin karin maxaa sameynayna dowladda waxaa u sheegaynaa in qof walbo soomaalida dhiig ajnabi wax loo ku jiro dalkaaga wax u qabo والله إلهي بقدرت الذي لا إله غير وان قدرته وان جعل إلى ودك وقت ودني على كان وحي هو بوحي بويسي ودني موا ورهاي سومالي إذا نيك هذيك الشيء أساء وزارت أنت وصعت محارب تالاس كبدر لا إله إلا الله صاحب معنا مسو هذا كان كوك وانا قاطع الله كبير سومالي أنت فيه وداون السالسي وكبيو وهذا كاسي تذكر حماتك على هلا كاسيو إلى هنا كيس أنا مريالنا مسو صاحب معنا والله هو يا عمي كذا ماشي كويس ويلا هويدي سميتو كوي اوي قيمه يا قرنا اوي ذي الحسن مارك وينو شاء الحمد لله لك ودك مجوكتو والله اله ما يكسر يدي لكل من عقاد ونقلا هوي سقال بلو تعالوا كوك سوت عنو كيدا ويس عنو كيدا كدشي ما حاربتا انت وسعتا ورني ولا شهاد شيء ور ما تقف كان قرح بيكسنايو هدي العلل لو سو شيغ لها قرحاس waxa ku dhinto hooyada walaasha ayayda family-ga ay ku burbure way dhinteen lacagdan qaad lacagtaas intay geeyeen family-ga waa dhinteen waa baabay maxaa sameeyeen war yaa la dagaalanaya iska celina war maanta aan hadii la Abdi Xakiin waa qofka qaska wado waa qabana dawladda u geynaa xukun u mara Abdi Xakiin qaladka sameeyna u jeeda di ay sheekina ka aamusa maxaa sameeyna والنفط ويقول اللي اسمه هاي نقول بختي ولا بينيا هذا لكن وقت جاي ما كدب سؤال كدب مرة هذه إيمانت أنا سحبي قال نير أدون وجعله هذه عندي كنت أنا ما تون أسيد والله إلهي بقى يكسر هو يدي معنا تيكسر علي ويدي لاني كان سبب تدوت بقى يديله لكن أنا هدي أرك لانير إنه ودك الشعب وخلاص كود إله بقى يكسر وعشيقة والله بالله نكان درك سامك ود عليك خبط هذا ورمح ورا علنا عودنا علن كعودنا ودني أنا ودك أنا وباهنا هبين والبهاد تنتي لسانه ودرنت أو مجرن كري والله بلا جوري ولا شيء نمع الجوجع هدي أبو حبناك إلا حافظ لكم تيكر ولا قبنا ولا حرا شرعي كيان على لها ودك هدي جوجل شكل مالي ودينا والله حرية ذا بس عنها ودنك مجوجي ودنك أنا كان نبضي أرضي أنا هاي سكولة أصلا قرحنا الله بيك سنة عيد وودوين كمان حرية ما لا مرينا ملها والدين تين والديلا maxaa sameeynayna marka wadanka ina ka oran wallahi oo bila ilaahay baa iga sareey Afrika jooga Afrikana waa ka sii socda Yurub arabayna wadankeena waa jeclaa saana ugu ooyna marka qarax oo soo wadankeena waa jeclaa waan rabaa inaa imaan kara hadii imaan nafteeda la baqana nafteeda la soo xaraan hadii imaan way dilisi maxaa sameeynaa sidoo kale been ma aha in nafta hadii aan Yurub xitaa aan tago malag iyo qoranya waa dhimana laakiin ilaahay dadaal ugu dhahay maraba hadalkan inaan ku sii dheeraano dad walaalaanahay هل علنا ودنا هل وقدنا لنا هل دينا ودنا مركب ما أهان إنه قف ولا كايجا أدشيد ألوكت أكجويسيد يعني أنا نأخذ جايس هذا كدي أبدي ما المسح مع دم الله واحد صح كان يقرر المرجع سومالي سيو صاحب كموس وشيء تطول على وأنا وحال مدا ما هن عدو نموتشرو واحد استلين على حديد أنا كتحدينا عدو ده استلين مع ريال ما أنت أديك ولا كذا ما قال لك توين اسمحان سمينا هنا مركب محان قبل سكرنا ما أنت ناس قرنا أنت عدو ناس قرنا بريد كمان لان رموسو دلو يا سكشكنا عنا marka waxa la yahay qofkii dhibaatada Soomaaliya waa naqaan hadaan anu aqoon qof yaqaan jir ilma ariyaal mar qofkaas yaqaan dawladda ku soo magacaabo dawladda u geeyo insha Allah hadaan anigu xasuuqo cid wax noo qabanaysa ma lahan intaan dalshay isku haleeleen waddan shay isku haleeleen inaan dawladda isku haleynaa fiican oo aan taa kuleyno dawladda wax walba la agstaagno hadda qaraxiso waxa la Soomaaliya waa isla qaatay شمبرا شيء مقالة الحورية وحلا شيء سوما شيء هبر بركاسو
raggaas waxaa dhaceen 5 beri wadna 5 beri wallahi maalintii lixaad nin walba dukaankiisa furtay biyaha cad bus cabay waa iska seexda meeshii baa hadalkii ku ilowna hadda maanta waa kan ilaa 4 beri caal baa qaraxsi qarax ka tarana adduunka waa dhacen kan 4 beri ama 3 beri caal baa meesha marka ilma ariyaal yaana looban waxaan hadda maanta ka ilowna waxaan wax shaqo bilawda maaha waligeed laakiin waxaan fahmay wax gibilkaaga ee walaalkaaga ama saaxiibkaaga familkaaga mid kamid ah uu geeriyoodo oo jirku dabkaaga caafami wax dad wax jira mataqaana dad wax jira dhahay adu maanta walaalka lama dilo hooyada lama dilo maanta ninkan hadda ani maanta hataa walaalka la dilo AKU ana biri walaalka la dilo ama maanta oo guriga istiraxo jifa jirto baa maanta walaalka lama dilin qarax iska fiis inna lillahi sheekay iska wadana ajir maanta hadda walaalka maanta adi soo shala maanta walaalka lama dilo samaano biri ogo in walaalkaas la dilo gubana markaas xanuunka dareen marka insha Allah markaas aan iyada waxaan halkayana ku sii dheeraan musu saaxiib macaan waddanka kuleenahay nool waddanka sababta insha Allah marka Soomaaliya isku tiirsanaano aan calankeena hal mid aan ka dhigno Ariyaal hal dad baan hal qof aan nahay hal baa ku hadinaa bas waxaan kala diiwaa qabiilkaas horta anagu walaalana waa isku sanaa maana laba diinaysan ya sama ya hal diin baysan hal luqada ku hadalna waraa wadamada caalamka waa arday ku isku diinahay oo isku jinseen oo soo waay anoo dad wada balaaga ma isku dhexnool yihiin wax wada qaybsan ilma Ariyaal waxaan isku keendiray waa dhexdeeda annaka maahan cid shisheeye ma waa dhexdeeda wax isdilayna beenha run hataa isku sheegno dhexdeeda isla ilma Ariyaal annaka aan heshiino oo dadka waxa la hadlay dadka leenahayo walaalka waa dilisaan niyow hooyada waa dilisaan waraadar macaan wax dhibaato wax faa'iido ka soo amalaan aqrina cadaabta ku galaysaa adduunkina halaag weyn naftaada ku waaysaa marka walaal macaan iska daa waxaas waxa maanta qarash aad ku qaadanaysid oo waxna aad ka faa'iido bari aad ka dhibaysid wax faa'iido ma la inta hooyada dilay qarash waxa ku taymaaye nin nafta u shaqayso walaal macaan insha Allah halku si dheeraa maayo ee ka saxmaan karaanka noo soo gabay waa guntiga gabadha barnaamijkeena aan ka hadalnay inta qaraxaas ku dhimatana Allah xariisto aad ugu xunnahay shaqadina aad ugu xunnahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inta meesha ku dhaawacantayna waxa leenahay Allah u foogay Allah caafiyo hooyadii anugeeda meesha ugu geeriyoodayna hooy macaan waxa ku leenahay anaga caruurtaada xariisto meesha ku naabaadna Allah u naxariisto arday badan oo qalin jibinaysa meesha ku baabaaday dhamaantoodna Allah u naxariisto si fiican Soomaaliya dhanka ka tacsi ka qadar qaadanayna sidaan oo qaybsanayna aad ugu xunnahay wala si weyn ugu xunnahay aad ugu xunnahay video si share gareey waa maasantii insha Allah dhamaantood aan salaamana video si share gareey hal gudbiyana